asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. wacno wanaagsan dadyooga soomaaliyeed ee hawada inaga dhegeysanaya inagalana xiriira mar waliba aalada facebooka pageka dhalinyarada maanta. maalin waliba waxaa la socotaan barnaamijka toddobaadka iyo nasashada qeybaha ugu xiisa badan aan kusoo qaadan waxaa ka mid ah haddii naqaleed xagga iyo weliba isboortiga iyo weliba sheekooyinka jacaylka ayaa ka mid ah waxyaabaha aan kusoo qaadan horyaalada Yurub waxyaabihii la ciyaaray maanta horyaalka Serie A iyo Premier League iyo weliba horyaalka Soomaalida aad ku xiiseyso Barcelona waxay tushan eber ku adkaatay iyo weliba sheeko jacayl aan ugu talagalay oo sheekadaasi la magac baxday qise ka dhacday dalka Koonfur Afrika. qisadaasi waxaa la yiraahdaa ruux laabtiisa kugu qoray halkee baad ku qori lahayd, ruux naftiisa kugu aaminay maxaad ku aamini lahayd iyo weliba waxyaabo kale oo fara badan. waa mar kale barnaamijkii toddobaadka iyo nasashada. barnaamijka waxaa idin soo saaray halkan inagala socodsiinaya anigoo ah Maxamed. qisadii jacaylka ahayd ee lamaanayaasha Soomaaliyeed ku dhacday ayaa waxa ay la magac baxday ruux laabtiisa kugu qoray halkee baad ku qori lahayd, ruux nafsidiisa kugu aaminay halkee baad ku aamini lahayd. qisadan la yaab kale ee jacaylka ayaa waxa ay ka dhacday dalka Koonfur Afrika. waxa ay u dhacday sida tan. qisadan ama sheekadani waxa ay dhaxmartay ama ay weli dhex taagan tahay lamaanayaal Soomaaliya oo lagu kala magacaabo Safiya iyo weliba Farxaan Xaaji oo ku dhaqan magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika. waxa aan leenahay ama aan lahayn xiriir jacayl oo soconaya muddo 2 sano iyo bar ah. Safiya oo aan ka helay kalsooni buuxda kalsooni nagu filan labadeena, balse markii dambe isku bedel qaraar jacayl oo ay sabab u noqdeen dumar saaxiibo ay ahaayeen Safiya waxa aan 2 sano iyo bar aan la lahaa xiriir jacayl aan mustaqbal iyo weliba xiise kalgacayl xambaarsan ii suurto gashay in aan ku bixiyo dhaqaale gaaraya $4,000 Mareykanka ah oo ay ku soo gaari lahayd dalka South Africa oo aan ku noolahay, ayuu yiri Farxaan, halka ay ayadu ku noolay dalka Sacuudi Carabiya. balse nasiib darro markii ay soo gaartay garoonka caalamiga ah ee Cape Town waxaa ku sugayay 2 gabdhood oo ay saaxiibo ahaayeen iyo aniga oo ahaa saaxiibkii ay 2 sano iyo barka xiriirka lahaayeen ee suurto geliyay in ay soo gaarto ilaah ka sukow dalka South Africa kuna bixiyay dhaqaalaha ay ku imaan lahayd. Farxaan iyo soo dhaweyn kadib markii ay 2 maalin qura nasatay oo ay soo wareegtay isla imaashaheedii ayaa imaatay dalka Koonfur Afrika ayaa waxa ay la soo booday ereyo uu ka naxo Farxaan. ileen horey ayaa loo yiri xiindaab dumar qofkii ay la damcaan dhaqsi uguma badbaado, taasi oo loola jeedo qiyaamada dumarka. waxa ay igu tiri Safiyo iska ilow wixii ina dhaxmaray in muddada 2 sano iyo barka xiriirka jacaylka aan lahayn si fudud, haddii kale waxaa la kulmi doontaa ciqaab iyo weliba xarig oo aan ku geysan doono, ayay ku celcelisay Safiya oo la tashanaysa ama la tashi ka helayso gabdho ay saaxiibo yihiin isla markaana isla soo koreen dalka Soomaaliya. Farxaan oo marqura indhihiisu ay ilmo isu soo taagtay ayaa murugo fara badan la soo diristay. waxa uuna niyadiisa geliyay sida dhaqsida leh uu ku ilaawayo jacaylkii 2 sano iyo barka xiriirka uu la lahaa Safiyo. akhristow rag iyo dumar, waxaan idin su'aalin lahayn ama aan su'aal niyadiina isweydiin lahaydeen, maxay ku qancin lahayd ruux laabtiisa kugu qoray, xagee baad ku qori lahayd ruux jannatul firdawsa kula jecel, halkee baad la jeclaan lahayd ruux nafsidiisa kugu aaminay maxaad ku aamini lahayd, iyo su'aasha kale oo ah ruux aad ballan ka qaaday maxaad ugu abaalgudi lahayd. waxa uu Farxaan ku nool yahay ilaa iyo haatan magaalada xeebeedka Cape Town, halkaasi oo uu ku nool yahay isla markaana uu ku ganacsado. gabadhii sidan u qiyaamaysay ee durba sida dhaqsida ah ula soo booday ereyada naxdinta leh, iyaduna ay ku nooshahay xilligan dalka Koonfur Afrika, qaasatan xaafadda loo yaqaano Bolivia ee magaalada Cape Town. gabadhaasina waxa uu ka soo kaxeeyay dhaqaalihiisana uu ku bixiyay
ayna ka timid dalka Sacuudi Carabiya isla markaana halkan waxay u timid si markaa labadoodu uun xiriirkooda jacaylka lamaane uu usii kordho ama uu xidideysto balse arrinka ayaan sidaa noqonin arrinkan waxaa ama qodobkan waxaan kasoo xiganay website-ka Wehel Media oo laga leeyahay dalka Netherland isla markaana waxaa soo qoray sheekadan soo diyaariyay Nuur Ismaaciil Sheekh oo kamid ah wariyaasha Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka South Africa. waa tahay markan waxaan gelaynaa xagga wiliba sportiga maalintii shalata ahayd ayaa waxaa wada ciyaaray xagga Premier League markaan ka bilaabo kooxda Manchester City iyo Liga Everton labiiba Manchester City ayaa ku badisay Arsenal iyo Bolton 3-0 Arsenal ayaa ku badisay kooxda Chelsea iyo wiliba kooxda Swansea iyo waxay ku dhamaatay 4-1 waxaa ku adkaatay kooxda Chelsea. Liverpool iyo wiliba Wolverhampton ayaa ciyaaray waxay ku dhamaatay 2-1 Newcastle iyo wiliba Blackburn 3-1 Newcastle ayaa ku adkaatay. West Bromwich iyo wiliba Fulham ay isku barbardhaceen. Wigan Athletic iyo wiliba Tottenham ayaa 2-1 ku adkaatay. ciyaarta ugu yaabka badneed waxay ahayd kooxda Manchester United oo la xakiyay guulaheedii faraha badnaa. Stoke City ayaa 1-1 ayay ku kala dhamaatay ciyaartaasi. maantana Aston Villa waxay ciyaaray QPR kooxda lagu magacaabo 1-1 ayayna ku dhamaatay horyaalka Serie A dalka Talyaaniga. haddaan u guda galo waxaa maalintii wada ciyaaray ugu horeen kooxaha Siena iyo waxaa ciyaaray Roma 1-1 ay ku dhamaatay. Inter Milan iyo Bologna 3-1 Inter Milan guusheedii ugu horeysay reer Milano. sidoo kale AC Milan ayaa iyadana guusheedii ugu horeysay ka Siena ka gaartay 1-1 Napoli Fiorentina 1-1 ay ku dhamaatay. kooxda Kiev iyo wiliba Genoa 2-1 Kiev. Verona ayaa ku adkaatay. Atlanta iyo kooxda Novara 2-1 Atlanta ayaa ku adkaatay. Cagliari 1-1 ay Udinese la gashay. Juventus oo iyaduna maalmahan sii liicaysa 1-1 ay waxay la gashay Catania. Lazio iyo Palermo 1-1 ay ku dhamaatay. Siena iyo Lecce 3-1 waxaa ku awood sheegatay kooxda Siena. Parma iyo wiliba Roma 1-1 oo caata waxaa ku adkaatay kooxda AS Roma. sidoo kale horyaalka Spain Primera División ayaa asna wareegiisii yaabka badnaa la ciyaaray. waxaa wada ciyaaray kooxaha Athletic Bilbao iyo wiliba Villarreal 1-1 ay ku dhamaatay. Sevilla iyo Valencia 1-1 Sevilla ayaa ku adkaatay. Real Madrid 6-2 waxay kaga adkaatay kooxda Rayo la yiraahdo. Barcelona 5-1 ay Athletic Madrid ku tuntay. kooxda Mallorca iyo wiliba Real Sociedad 2-1 waxaa ku adkaatay Mallorca. Levante 3-1 waxay kaga adkaatay Espanyol. sidoo kale gadanta kooxda la yiraahdo Osasuna 1-1 ay isku garab dhaceen Sporting Gijón iyo wiliba sidoo kale Santander 1-1 ay ku dhamaatay. Zaragoza iyo Malaga iminka ayay waxay maraysaa 1-1. Getafe iyo Real Betis waa ay balansan yihiin. barnaamijkan lamida ku kulmi doono waa Maxamed Argentino iskaga tagay sida ay nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi